weerar ku bilowday qarax ismiidaamin ah ayaa waxaa shalay galab lagu qaaday hoteelka alxayaad ee ku yaala agagaarka kilomitir 5. weerarkan ayaa waxaa soo qaaday maleeshiyaadka argagixisada ah ee al-shabaab oo tiradoodu lagu sheegay 14 oo aan weli la xaqiijinin. weerarkan iyo dagaalkan oo ay gudaha ugu galeen hotel alxayaad oo ay ku sugnaayeen dad badan oo shacab iyo madax iskugu jira ayaa waxa uu qaatay soo afjaristiisa muddo ka badan 16 saacadood iyo xalay oo idil ay maleeshiyaadka argagixisada ee gudaha u galay hoteelka ay rasaas iyo walxaha qarxa ay ka dhaxridayeen hoteelka. ciidamada dowladda federaalka oo isku jira qaybahooda kala duwan ee boolis iyo military iyo ciidamada gaarka u tababaran ee Alpha Group ayaa waxa ay dadaal dheeri ah ku bixinayeen sidii ay maleeshiyaadka gudaha u galay hoteelka ee argagixisada ay u soo afjari lahaayeen shacabka ku go'doonsan gudaha hoteelkana ay u soo badbaadin lahaayeen. wararka qaar ayaa waxa ay sheegayaan inay dadkii gudaha ku jira qaarkood uu dhaawac xun uu soo gaaray halka kuwa kalena ay ku geeriyoodeen. sidoo kalena qaar badan oo ka mid ah oo ay ilmo yaryar iyo haween ay ku jiraan la soo badbaadiyay. hotel xayaad ayaa waxaa soo gaaray burbur lixaad leh taasoo ay adkaan doonta in uu ka soo kabto burburka dhaqaale ee soo gaaray milkiilaha hoteelka. wararka saaka soo baxay ayaa waxa ay sheegayaan in maleeshiyaadkii la soo afjaray gudaha u galay tiradoodana lagu sheegay 14 halka wararka qaarna ay sheegayaan in 13 ka mid ah la dilay halka midna uu isa soo dhiibay oo ay booliska gacanta ku dhigeen. ha yeeshee warkaasi war sugan ma aha. wixii war ah ay ku soo kordha ama arrinkaasi ah kolley iyo waxa war saxaafadeed ka qaban doona ama ka ku soo bandhigi doona saxaafadda ciidanka booliska haddii uu jiro ruux la qabtay. ha yeeshee wararka ayaa sidaasi sheegaya. dowladda haatan jirta ee 100 maalmood weli aan u dhammaan ayaa waxaa lagu dhaliilaya inay ammaanka xoogaa ay habac ka tahay tiyo oo awaayahanba xukuumaddii kordhow lasoo dhisayna ay xoogga saartay abaaraha dalka aafeeyey. ha yeeshee taliyayaasha ciidamada booliska iyo militariga iyo saraakiisha amniga ayaa waxay sheegayaan habac dhanka ammaanka inuu jiro oo ay wax ka qaban doonaan hadduu ilaahay yiraahdo. dadka shacabka ah ayaa waxay durba dhaliilayaan dowladda cusub oo aan 100 maalmood weli u dhammaanin. warar wixii ku soo kordha dib ayaanu idinkala soo socodsiin doonaa insha allahu tacaala. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. بالله سوى الأركان ما هني يقولوا أنا كلا بسم الله يوقف يعني الحمد لله رب العالمين. محاني كل عين أي محل هذا وحيت هذا السوري قام عارفنا قرح هذا عم سخشان قلنا فاهم يا ري. الحمد لله رب العالمين. بسم الله ضحى قرح يا كيف عادك وسريع بالك عادك وسريع مش سريع أصلا سويت ما فيك ادي هدي وين